توجدا رمضان قد لاح ضيوفك في المدى قد جئت يا خير الشهور محملا برا وطهرا للعباد وسؤددا برا وطهرا للعباد وسؤددا قلبي إلى لقياك تاق توجدا رمضان قد لاح ضيوفك في المدى قد جئت يا خير الشهور محملا برا وطهرا للعباد وسؤددا برا وطهرا للعباد وسؤددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وقافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة وجعلوا صالح أعمالهم فيها سفنا. الحمد لله daawad al dhammaantiin meel kastoo joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. barnaamijka aan ka hadli doono waxa uu yahay qisas asaxaaba. qisas asaxaaba oo noogu horeyn doono saxaabiga jaliilka ah abubakar asidiiq. abubakar asidiiq axad alcasharata almubashiriina fi ljanna, waa 10kii midkooda oo ilaahay jannada ugu bishaareeyey. abubakar asidiiq wuxuu kaluu yahay thaniya thnayni id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana, oo ilaahay qur-aankiisa uu ku xusay. abubakar asidiiq magaciisa waa cabdullaahi binu abi quxaafa, wuxuuna ka dhashay qabiilka quraysh ayuu ka dhashay. wuxuuna dhashay markuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu dhashay 3 sano kadib. rasuulka ayaa 3 sano ka weynaa abubakar asidiiq radi allahu canhu. abubakar asidiiq wuxuu ahaa ganacsatada midkoodii ugu waaweynaa, ganacsatada kuwa ugu waaweynaa ayuu ahaa. wuxuu ahaa nin taajir ah, nin caan ah, qabiilkiisa dhexdiisa caan ku ah. wuxuu ka mid ahaa sayid oo ahaa min saadaati quraysh ayuu ahaa, haddana yani madax oo madaxda quraysh ka mid ah ayuu ahaa. abubakar asidiiq radi allahu canhu, rasuulka sala allahu calayhi wasalam yani dad oo yani waxay ahaayeen aada iskugu dhow oo yani isyaqaana oo saaxiibo ah ayay ahaayeen intuusan rasuulka sala allahu alayh wasalam soo bixinin ka hor. inkastoo asiga laakiin oo aada ugu mashquulsanaa shaqadiisii ganacsi, oo aada ugu mashquulsanaa. abubakar asidiiq radi allahu canhu ayaa islaamka galay, islaamka ayuu galay abubakar asidiiq asigoo markaasi islaamkii intuusan islaam gelin ka hor uusan weligiis usujuudin sanam usujuudin, weligiis uusan caabudin sanam uusan caabudin. wuxuuna aada iyo aada u inkiri jiray abubakar asidiiq waxay qoomkiisa qabiilkiisa ay samaynayeen ama dadka kale ay samaynayeen oo yani fisqiga ah iyo xumaanta ah, qamrada ay cabaan, tumashada ay sameeyaan, sanamkaas oo yani markaas dhagaxa ah ama geedkaas ay caabudayaan. waxaasoo dhan ayuu yani qalbiga ka inkiri jiray. weligiisa aliis wuu nici jiray, ma jecleen aad iyo aad. macnaha wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dhoorsada ayuu ahaa. asigoo saas ah ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay soo saaray oo yani markaasi yani si uu diinta markaas oo u gudbiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. abubakar markuu uu islaamay wuxuu bilaabay inuu diinta asigana oo kaalintiisa ka qaato oo fidiyo diintiisa. abubakar gacantiisa ayaa waxaa kusoo islaamay dhowr saxaabadood ay ka mid yihiin markaas saxaabadaasi cuthmaan binu cafaan oo ah markaasi khulafaa larbaca, oo ahaa khulafaa urashidiin oo yani lagu tilmaamo. cuthmaan ibnu cafaan ayaa ka mid ahaa. waxaa kaloo ka mid ahaa zubayr ibnu cawaam ayaa ka mid ahaa. waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaasi cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa ka mid ahaa. waxaa kaloo ka mid ahaa arqam ibnu abi arqam ayaa ka mid ahaa.
arqam ibn abi arqam oo ninkii oo gurigiisa lagu tilmaamay beytul muslimiin muslimiinta beedkooda oo lagu tilmaamay yani muslimiinta badankoodii waxay kusoo islaameen ama ay tegi jireen rasuulka ayaa deganaa sallallahu alayhi wasallam arqam gurigiisa ayay markaas tegi jireen gurigaas ayaa wuxuu ahaa saldhiga muslimiinta ayuu ahaa waxaa kaloo gacantiisa kusoo islaamay sayidina abubakar as-sidiiq abi hurayra oo ahaa cabdiraxmaan ibn saqr ad-dawsi abi hurayra wuxuu kusoo islaamay asna gacantii abubakar as-sidiiq ayuu kusoo islaamay marka waa tir badan yihiin asxaabta abubakar gacantiisa kusoo islaameen waa tir badan yihiin abubakar meeshaas keliya maku akaanin dadaalkiisa ayuu sii waday abubakar as-sidiiq maadaama uu ahaa nin ganacsataa ayuu ahaa isagoo ganacsataa wuxuu bilaabay markaasi muslimiinta la cadaabayo markaas diinta yani gelitaankooda darteeda loo cadaabayo oo loo haysto qaar ay kamid hataa ay ahaayeen macnaha adoome ay ahaayeen sida bilaal ibn rabax oo kale wuxuu bilaabay abubakar as-sidiiq inuu u damqado dadkaasi oo soo xureeyo suu ku xureyn lahaa ayuu yani bilaabay abubakar as-sidiiq waxaa gacanti soo xureeyey wuxuu soo xureeyey ilaa iyo 6 qofood oo kale ayuu soo xureeyey oo ay kamid yihiin sayidina bilaal ibn rabaxa ay kamid yihiin waxaa kaloo kamid ahaa caamir ibn fahir ninkii la dhahayay waxaa kaloo kamid ahayd ummu cabisa islaantii la dhihi jiray iyadana yani waa la haystay iyadana marka intaas ayuu soo yani xureeyey abubakar as-sidiiq iyo dad badanba marka abubakar as-sidiiq yani wuxuu ahaa nin deeqsi ah ayuu ahaa oo hantidiisii iyo macnaha maalkiisii hantidiisii iyo naftiisii iyo ehelkiisaba oo macnaha u huraayay diinta iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo ku badbaadin lahaa oo u huraayay abubakar as-sidiiq wuxuu noqday ninka yani qalbiga rasuulka ugu dhow dadka kale ayuu noqday abubakar as-sidiiq radiyallahu anhu yani abubakar as-sidiiq jaceelka rasuulka u jeclaaday wuxuu buuxiyey dhiigiisii ayuu buuxiyey iyo dhuuxiisa iyo laftiisa ayay buuxisay jaceelka yani rasuulka uu qabay sallallahu alayhi wasallam abubakar as-sidiiq sidaas darteed ayaa ilaahay wuxuu kusoo dejiyey aayaad qur'aaniya ayuu ilaahay kusoo dejiyey abubakar as-sidiiq oo lagu sharfayo asiga ilaahay wuxuu yidhi wasayajannabuha al-atqa alladii yu'tii maalahu yatazakaa ayuu yidhi alle subxaanahu watacaala wasayajannabuha naarta lada yani naarta lada waxaa ilaahay waxaan ka dheerayn doonaa ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala al-atqa mid ka cabsanaya abubakar as-sidiiq ayuu kula jeedaa al-atqa inkastoo aayadda ay yani kusoo degtay abubakar as-sidiiq oo ay qaas u tahay laakiin waxay camimaysaa muslimiinta oo dhan ayay camimaysaa aayadda wasayajannabuha waxaan ka dheeraynaynaa naartaas eelada al-atqa mid ka cabsanaya oo abubakar as-sidiiqa ayaan ka dheeraynaynaa alladii yu'tii maalahu yatazakaa kaasoo maalkiisa bixinaya soo u zakeeyo maalkiisa bixinaya yani soo u zakeeyo oo muslimiinta uu siinayo macnaha oo ku xureynayo muslimiinta ku xureynayo muslimiinta uu siinayo diinta uu ku difaacayo yatazakka uu leeyahay Allah wasayjannabu al-atqa alladhi yuti maalahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila ibtigaa'a wajhi rabbih al-a'la wala sawfa yarda intaas oo dhan abubakar as-sidiiq tirtiisa ayay u soo degeen ilaahay aayadda muxuu ku dhameystiray wala sawfa yarda abubakar as-sidiiq sida la sheegay abubakar as-sidiiq ilaahay subxaanahu wa tacaala toddobada samaawadood ayuu wuxuu kasoo dhahay abubakar aniga raalli ayaan ka ahay adiga raalli ma iga tahay ninkaas nin yar ma ahan abubakar as-sidiiq waa nin weyn ninkii ilaahay asoo adduunka korkiisa jooga ilaahay raalli ka noqda ninkaas nin yar ma ahan waa nin aad iyo aad u weyn abubakar as-sidiiq radiyallahu anhu marka aan ka hadlayno juhdigiisa si uu u dadaali jiray dadaalkiisa marka aan ka hadlayno waxaa ka masiiri jiray asxaabta oo dhan ayaa ka masiiri jirtay yani sida uu u dadaalayo yani uu macnaha diinta islaamka uu ugu dadaali jiray sida uu yani u hanuunsanaa hanuunkiisii sida uu yani maxallaas u cibaadaysan jiray yani waxaa ka masiiri jiray asxaabta oo dhan ayaa ka masiiri jirtay khaasatan sayidina cumar radiyallahu anhu aad ay ugu masiiri jiray توجدا رمضان قد لاح ضيوفك في المدى
قد جئت يا خير الشهور محملا برا وطهورا للعباد وسؤددا برا وطهورا للعباد وسؤددا قلبي إلى لقياك تاق توجدا رمضان قد لاح ضيوفك في المدى قد جئت يا خير الشهور محملا برا وطهورا